erey koowaad maanta aan baranayno waa distract, mashquulin ama sii jeedin. wax ku mashquuliya ama ku sii jeediya ayaa la dhahaa distract. oo qof aad dhihi kartaa please fadlan don't distract me, hay mashquulinin, hay sii jeedinin while I'm studying, markaan wax baranayo. An unexpected visitor, booqde aan la filaynin. An unexpected visitor, booqde aan la filaynin can be wax noqon kara naftigiisa distraction, wax ku mashquuliya. haddii aad danaynayso inaad barato luqad English oo israacsan bilow ilaa dhammaad bisha September ee sanadkan 2026 hadduu alla idmo oo ah bisha 9 ee sanadka, waxaan bilaabayaa fasal cusub oo lagu baran doono luqadda Englishka. qofka u baahan ha nagala soo xiriiro contactida aan leenahay. بسم الله الرحمن الرحيم. ومركله iyo macallinkii Cabdirasaaq Ibrahim Aadan British. maanta waxaynu qaadanaynaa xalqadii 13aad ee ereyada noo socday aanu bixinay 2 daqiiqo iyo 2 erey. erey koowaad maanta aan baranayno waa distract, mashquulin ama sii jeedin. wax ku mashquuliya ama ku sii jeediya ayaa la dhahaa distract. please fadlan don't distract, ha mashquulinin oo ha sii jeedinin driver, darawalka while he's driving, markuu baabuur kaxaynayo. qof aad dhihi kartaa put away your phones, telefoonada iska fogey so they don't distract you, si aysan ku mashquulinin. while marka you are studying, aad wax baranayso, put away your phones, telefoonada iska fogey ayaa leedahay qofka. put away, iska fogey your phones, telefoonadaada, so they don't distract you, si ay ku mashquulinin ama ku sii jeedinin. while marka you are studying, aad wax baranayso. erey labaad oo aan idin barayo waa isagii oo magac laga dhigay distraction, sii jeedin, distraction, mashquulin, distraction, mashquulin. my phone, telefoonkayga, is a big distraction, waa mashquuliye weyn. is a big distraction, waa mashquuliye weyn oo aad ii mashquuliya when I study, markaan wax baranayo. waxaa kaloo dhihi kartaa social media, baraha bulshada, and television iyo telefishinada common distractions. common distractions waa mashquuliyaal guud waay. common distractions, mashquuliyaal guud waay, kuwa guud dadka si guud u mashquuliye waay. sidoo kale mashquuliyaasha waxaa noqon karaa unexpected visitors, booqdayaal aan la filayn. adigoo qolka isku diyaariyay wax akhristo, qof socda imaan kara marmar oo ku soo booqday. marka booqdayaasha aan la filayn naftigooda marmar ay ku mashquulin karaan. waxaa la dhahaa unexpected visitors, booqdayaal unexpected, aan la filayn. unexpected visitors, visitors waa booqdayaal dadku soo booqanaya, kusoo siyaaranaya, kusoo booqanaya. unexpected, aan la filaynin. and phone calls iyo telefoonada soo dhaca can be wax noqon karaan annoying distractions, mashquuliyaal annoying ka caraysiinaya ama ku caragelinaya. annoying wixii ku caragelinaya waay ama ka xanaajinaya. marka waxaa la lahaa unexpected visitors, booqdayaal aan la filaynin. and phone calls iyo wicitaanada telefoonadaba can be wax noqon karaan annoying, kuwa ka caraysiinaya. annoying wax ku caragelinaya ama ka caraysiinaya ama ka xanaajinaya. distractions waa mashquuliyaal. distractions waaye mashquuliyaal annoying ka caraysiinaya. when marka you are studying, wax ku baranayso at home, guriga. waxaad tiri this house, gurigan, is full of, waxaa ka buuxa distractions, waxyaabaa dadka mashquuliya, including waxaa ku jira ringing phones, telefoonada soo dhacayo, loud family conversations, wada sheekaysiida qoyska, loud oo codka dheer, noise, buuq ama qaylo, noise, buuq ama qaylo from ka imaanaya the neighbors, deriska. mar saddexaad ereyga asoo haddii ed lagu daro si faahfaahsan u shaqayn karaa distracted, qof mashquulsan oo si u baxsan waay. marka oo mashquulsan waxaa leedahay you seem distracted, waxaad u muuqataa qof mashquulsan oo la socon waxa jira. you seem, waxaa muuqataa distracted, qof mashquulsan oo si loo sii jeediyey oo xaaladdu hayaan ka warhayn. is everything okay? wax walba okay ma yahay? sidaas waxaa noogu dhamaaday ereyadii maanta aan qaadanaynay oo kala ahaa distract, la mashquuliyo, la sii jeediyo oo ficil ah. distraction, mashquulinta laftigeeda ama sii jeedinta laftigeeda oo magacowday waxyaabaha dadka mashquuliye ah iyo mashquulinta lafahanteedaba. ama erey ugu dambeeya oo sifo aan ka dhignay oo ah distracted, qof markaas si u maqan oo mashquulsan. qof alla hadda kulama soo isaga dhanba you are distracted, ama telefoon ku mashquulsan yahay ama si kale oo martay u baxsan yahay. you are distracted aleda, what happened? you are distracted, lama socotido si waad u mashquulsan tahay, u baxsan tahay. maxaa ku helay? marka inta laga gaari casharka xiga, wabilaahi tawfiiq.